balse waxaan ii sheegayaa farxaddu inay u qaybsanto laba nooc. Farxaddu waxay u qaybsantaa laba nooc. Waa farxad lagu abuuray iyo farxad aad adigu abuuratay. Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa dadka farxadda badan iyo sida loogu garto iyo dhaqamadooda. Dadka farxadda badanaa waa dad dhoolla caddayn badan, wejigoodana laga gartaa oo laga dareemaa. Balse dadku farxadda waxay u yaqaanaan inuu qofkaasi uu lacag haysto, uu nolol sare ku jiro ayay farxad u yaqaanaan. Ma aaminsana dadka nolosha hoose ku jira ama dadka faqriga ah inay yihiin kuwa qaarkood farxad badan. Balse waxaan ii sheegayaa farxaddu inay u qaybsanto laba nooc. Farxaddu waxay u qaybsantaa laba nooc. Waa farxad lagu abuuray iyo farxad aad adigu abuuratay. Hadda kaba soo qaad, waxaa lagu yiraahday maanta intaasoo lacag hayso saarti ugu baashaa, laakiin berri waa laga soo celinayaa. Adigu berri oo dhan waad faraxsan tahay, balse saa dambe ma faraxsanid, waayo waad murugaysan tahay oo waa laga qaaday wixii oo dhan. Haddaba dadka farxadda badanaa waa kuwo daacad ah, waa kuwo dulqaad badan, waa kuwo dabacsan, waa kuwo dadka u mataqaanaa la jecel inay iyaguna farxaan. Dadka farxadda ma aha kuwo danaystayaal ah, waa kuwo dadka dhibka la qaybsada, waa kuwo xitaa haddii ay dhibku haysato gacanta qofka koowaad oo ku qabta kuwa noqdo weeye. Dadka farxadda ma aha kuwo isla weyni ku jirto, ma aha kuwo kibir badan, ma aha kuwo dadka iskala weynaysiiya, ma aha kuwo dadka liida. Waa kuwo dadka badanaa dhiirigeliya oo yiraahdo waxaad waa samayn kartaa saaxiib. Dadka farxadda waa kuwo yaqaana qiimaha waqtigu leeyahay, waa kuwo ujeedooyin leh, waa kuwo hadaf nolosha kale. Dadka farxadda waxaa la oran karaa waa kuwa guuleysta mustaqbalka noloshooda. Ma isweydiisay sababtaan ugu tilmaamayo waxaasoo astaamo ah dadka farxadda badan? Farxadda laftigeeda waxaa abuura ra'yiga fiican iyo dadka wanaagsan. Farxadda waxaa keena dadka kalsoonida badan, dadka wanaagga badan. Dadkaas ayaa farxa nolosha. Haddii aad tahay qof xun ama qof ay dadku neceb yihiin, weligaa ma farxaysid, sababtoo ah dee dadku waxay ku farxaan ma samaysid. Ma noqonaysid qof ay dadku jecel yihiin, ma noqonaysid qof ay dadku la farxaan, ma noqonaysid qof ay dadku caawiyaan markaa dhibaataysan tahay. Sidaa darteed farxaddu waxay ka bilaabataa kalsoonida. Haddii aadan kalsooni lahayn ma farxaysid, waayo noloshaada baad liidaysaa. waxaad leedahay waxaas iguma habboona, hebel saasuu yahay, saasuu u faraxsan yahay, noloshiisa saasuu ugu faraxsan yahay. adigu noloshaad haysatid ku farax. kadib farxadda waxay tahay waad dareemaysaa. farxaddu waxay ka qayb qaadanaysaa mustaqbalkaaga, noloshaada. diinteena islaamka waxay tiraahday war dhoolla cadde